jacaylbaan dhex muquuraya miraalihiisi midigtaygu qaadiyo mawjadba isiga muqdisho oo wajiga ku haysa badweynta hindiya waa magaalo aad qadiim u ah magaceedana waxaa la yaqaanay waqtigii faraacinta masar 6 ama 7 qarni ka hor magaalada muqdisho waxaa lagu dhisay masaajidyo iyo minaarado aad u qurux badan kaasoo ka haray raadkii taariikh ku yeelashadii carabta iyo kuwii beershiya muqdisho ma jirto magaalo u eg oo afrikada madow ah maanta muqdisho waa caasimada Soomaaliya dhismo casri ah iyo kuwa kale oo aad qadiim u ah dad badan iyo gawaari kala duwan ayaad ku arkaysaa meel walba waxaad kaloo aad ku arkaysaa magaaladan muqdisho ganacsiyo aad u tiro badan oo dadku ay ku kala iibsanayaan alaabo ay isticmaalaan maalin walba kuwaasoo isugu jira alaabooyinka guryaha cuntada iyo waxyaalo aad u kala badan oo kala duwan Soomaaliya waa wadan xor ah laga soo bilaabo sanadkii 1960kii waana wadan aad u weyn oo leh xeebaha kuwa ugu waaweyn ee Afrikada xorta ah iyadoo lagu qiyaaso wadanka Soomaaliya inay ku nool yihiin 1980kii oo waqtigan ah dad u dhigma ilaa iyo ama ku dhow ilaa iyo 3 milyan oo qofood magaalada aad ay u ballaaratay waana loo jeedaa halka saac ama 7 subaxdii xafiiska milishiibiyada ama dawladda hoose ee magaalada Muqdisho saad u jeedaan dadka waxay saf ugu jiraan dhulbixintii milishiibiyada ee Muqdisho ay ku sameeyso dadkan oo isugu jira qaxooti dad reer guura ah oo go'aansaday inay magaalada qayb ka degaan rabana in loo fududeeyo si ay u dhisan lahaayeen dhulka la siiyay xafiiska gudihiisa waxaa fadhiya shaqaalaha dawladda hoose ama milishiibiyada iyagoo ka wada hadlaya si ay dhulka Soomaaliya ku yaala waxa iska leh dawladda bil kasta lootooyinka la qaybiyo waxa la kala siiyaa qof walba oo dhul la'aan ay hayso dhul kasta oo Soomaaliya ku yaala waxa iska leh dawladda dhulka dhibisiisa waxaa ku shaqo leh geometriga dawladda hoose ee la yiraahdo Cabdulqaadir shaqooyinkan aan qabano waa shaqo socota maalin walba saad u jeedaan dad badan ayaana sugaya annagu shaqadeena waa in aan dhul siino iyaga ayaa guryaha dhisanaya dhulka ugu yar aan bixino cabirkiisa waa 13 lagu dhuftay 3 mitir kan ugu weyn cabirkiisu waa 20 mitir lagu dhuftay 20 dadka aan siino aad ay u yeerahay dadka intooda badan waxay u rabaan dhulka iyagoo doonaya inay ku aqal galaan ama ay ka guuraan xaafadaha qadiimka ee magaalada Muqdisho iyo waxa kale oo jira dad dhulka baadiyaha ka yimaada arkana marka ugu horeysa Muqdisho rabana inay ku noolaadaan dhibaatooyin badan ayaanu kala kulanaa dhulbixintan dhibaatooyinka aan la kulano dhulbixista waxa kamid ah sida aad u jeedaan islaantan hor fadhiisa waxay ka soo guurtay baadiyaha waxayna leedahay waxaan doonayaa in la isiyo dhul aan ku dhisto guriyo dhulkaas oo ah meesha aniga aan doonay in laga siiyo
markaan weydiiyey dhulkii aan ku siiyey maxaa ku dhacay waxay leedahay dhulkaad isiisay aad ayuu u fog yahay ma tegi karo dhibaatadiisna way badan tahay ee waxaan doonayaa meel dhow inaad isiisid aan kuu duceeyey waa inaad ii dhaqsataa mar dhow sidaad u jeedaan waxaa bilowday dhulbixintii iyadoo geometriga dowladda hoose ee muqdisho uu cabirayo dhulkii la siin lahaa dadweynaha sharciga dowladda hoose ee muqdisho wuxuu qorayaa haddii dhul lagu siiyo waa inaad guri ka dhisataa markiiba alaabna aad keensataa si aa ugu noolaatid dhulkaas dhulka aad ayuu oomano u yahay iyadoo sida biyo loo heli lahaana aad iyo aad u dhib badan tahay meelaha qaarkood ee ka tirsan magaalada tan muqdisho Adesso questo è già esecutivo. talyaaniga ku nool magaalada muqdisho ilaa iyo waqtiga isticmaalka waxaa lagu qiyaasay inay ahaayeen ilaa iyo 40,000 sanadkii 80meeyadii waxa kaliya oo ku haray dhowr boqol waxaa jira nin talyaani ah oo la yiraahdo Garfagnano wuxuu qaatay dhalasho Soomaali ah isagoo diinta muslimkana qaatay iyo geometriga la yiraahdo Carlo Bertini oo ka yimid magaalada Reggio Emilia dalka Talyaaniga isagoo u shaqeynaya dowladda hoose ee Muqdisho Questo è il bozzetto. Sì, questo è già esecutivo. meeqa sano ayaad u shaqaysaa dowladda hoose ee Muqdisho maanta ma bilaabay shaqadan 1936 ayaan shaqada igu horeysay say ku dhacday ilaa iyo waqtigaas inaad shaqadan joogtid aad ayaan uga helay magaaladan maxaa dhacay Soomaalidu ma baran miyaa shaqadan maalintay bartaan waan ka tegayaa wadankan say ku imaatay magaalada Muqdisho waxaan Muqdisho imid 1936 anigoo u imid dagaalkii Itoobiya iyo Talyaaniga dhexmaray awgiis markii dagaalku dhamaadayna halkan ayaan iska joogay waxaan shaqo ka helay dowladda hoose ee Muqdisho ama minishiibiyada iyadoo shaqada la bilaabay December 1936 kowdii Janaayo 1937 waxaa albaabada u furmay dadweynaha magaalada ma aragtay siday u fiday magaaladan aad ayay u fiday iyagoo ay ka hor yimaadeen dhibaatooyin aad u fara badan kuwaasoo ay ka mid yihiin deegaanka bulshada jidadka iyo kan ugu weyn oo ah dhaqaalaha magaaladan Muqdisho oo ah magaalo dhalatay lacag la'aan dad wax bartay oo Soomaali ah ayaa inta badan dibadaha ka yimaada waxayna yiraahdaan lacagaha wadamada Yurub lagu dhiso xataa wax u dhigma ma jiraan halkan wadankan petrol ma leh laakiin waxa la rajaynayaa mar dhow in Soomaaliya petrol laga helo kullay hadii petrolka la helo waxa loo maleynayaa dhibaatooyinka haysta wadanka Soomaaliya qaas ahaan magaalada Muqdisho inay isbedeli doonaan waxa dhacda mararka qaarkood in xataa aan la helin gawaaridii ama baabuurtii ay isticmaali lahaayeen dowladda hoose ee Muqdisho sida loogu soo cabiro dhulka la siinayo dadweynaha Soomaaliyeed dhismahan aad u jeedaan waa sarta minishiibiyada ama dowladda hoose ee Muqdisho waxay ahaan jirtay dhismihii laga xukumayay 10kii sano ee u dhaxaysay 1950kii ilaa 1960kii xukuumaddii ku meel gaarka ee Talyaaniga loo yaqaanay Fudushaariya kaasoo xukumayay ilaa iyo Soomaaliya ka hesho xornimada 1960kii xafiiskan weyn ee dhismihiisa waxaa hadda fadhiya duqa magaalada Muqdisho Yusuf Ibrahim Abu Ras طبعا halkan hadaynu xafiiskan u noqono xafiiskan wuxuu leeyahay taariikh aad u dheer sidaad la socotaan waxaa degnaan jiray wakiilkii dowladda Talyaaniga u qaabilsanaa ku meel gaarkii xornimada Soomaaliya anigu waxaan xafiiskan ka shaqeeyaa muddo 5 sano ah
shaqadaydana kama duwana shaqo kasta uu qabto duq magaalo ama siindeko meel alla meeshu adduunka ka jiro sidaan la socno muqdisho waxay la kortay iyadoo aysan jirin wax plan ama ku talagal ah waana magaalo uu geedaha cagaarku ku yeelahay qoraxduna ay aad u kulushahay markuu kacaanka dhashay waxaa gacanta ku dhignay magaalo ay dhibaatooyinkeeda aad u fara badan yihiin kuwaasoo ay ka mid yihiin in qof walba uu ka dhisto guri meeshuu doonayo wadooyinku aan u fiicnayn korontada oo aad u yarayd magaalada waxa ugu daran waxay ahayd dhibaatooyinka guri la'aanta taasoo ka timid markii dagaalkii ogaadeynaya uu dhammaaday waxaana soo xog saaray dad badan oo qaxooti ah oo magaalada ku soo batay iyo dad badan oo ka soo guuray baadiyaha si ay ugu noolaadaan muqdisho iyadoo ay taasi jirto qoys kastoo Soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay in guri iyo meel ku noolaado la siiyo marka dhalanaysa ha ku dhalato Soomaaliya waa wadan aad faqiir u ah dadka waxa soo gasha lacag aad u yar waxaana ka arkaysaa dadka Soomaalida markay suuqyada ay tagaan inay wax soo iibsadaan aad ayay ugu adag tahay lacagaha adag ee ama lacagaha qalaad Soomaaliya waxay ka soo gashaa dhoofinta kalluunka muuska iyo xoolaha nool lacagtaas oo ay ku bedeshaan batroolka looga baahan yahay wadanka Soomaaliya warshado sida u fara badan male waxa laga yaabaa inay ku yeelaan dhowr warshadood kuwaas oo soo saara dharka iyo cuntooyinka ay isticmaalaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ninkan waxa la yiraahdaa Ibrahim wuxuu ahaan jiray nin reer miyi ah wuxuu yimid magaalada Muqdisho muddo haatan laga joogo 15 sano wuxuuna go'aansaday inuu noqdo nin kalluumaysato ah waa kan ilmahayga iyo xaaskayga gabadhaydan waxa la yiraahdaa Xaawo Qaasim 9 sano ayay jirtaa gabadhan kale waa Boosteeya oo macnaheedu yahay tan wax walba isku dubarida 12 sano ayay jirtaa Yariistan waxay jirtaa 6 sano sanadkii koowaad ee iskuulka ayay bilowday tani waa xaaskayga oo 30 jir ah iyadoo aan ku guursaday da'aad u yar iyo Qatra iyo Madiina oo 8 iyo 14 sano kala jira intaasi waxay ahaayeen qoyskayga oo ka kooban 5 gabdhood iyo xaaskayga muddo markaan joogay magaalada Muqdisho ayaa dawladda hoose waxay siisay dhul guri aan ka dhisto taasoo u qasabtay inaan bedelo nolosheedii hore ee reer miyiga ahaa markii guriga dhismihiisa bilaabay waxa ii suurtagashay inaan guursado oon xaas iyo caruur aan yeesho si aan nolosheeda waxaan uga bedelo hal qol adoo kuna nool 4 qofood oo qaraabadaada ah nolosha soo dhib ma ahan Ibrahim haddaad u maraysid nolosheeda inay adag tahay waxaa fiican lahayd inaad aragtid saxaaraha oo ah dhulkii aan ku dhashay kuna soo koray intaanan imaanin Muqdisho ilaa wuxuu ku kacay 6,000 saxarahan oo ah meeshuu Ibrahim ku dhashay ayaa waxay tahay meel aad u kulul oo ka mid ah dhulka wadanka Soomaaliya dad badan oo Soomaali ah oo ilaa iyo 2 milyan oo qofood gaareeya ayaa sidan u nool oo ah nolol reer miyiga ah
hadda see la yahay nabad ma la roono haa carruurta see yihiin lagan tahay haye waa sida waa iska fiican yihiin soo maha nuunogo ka waram nuunoga nuunugu waa laba haweenaydan iyo carruurteeda waxay sugayaan raggoodii oo sahan meel dheer u aaday waxay leedahay waxay ku maqan yihiin meel roob lagu sheegay oo dheer dadka reer miyiga ah waxay leeyihiin dad ku takhasusay inay soo baadi gubaan dhulka daaqa leh ee roobka uu ka da'ay kaasoo loo yaqaano sahan noloshan aad iyo aad ayaan u aqaanaa waayo muddo haatan laga joogo 15 sano waxaan ku noolaan jiray noloshan reer miyignimada ah marka waan aqaanaa sida sahanka loo aado iyo meelaha roobku ay ka da'een si aan u geysano xoola daajintiisa waddanka reer guuray waay haye meeshii fiican baa in la tago meeshii abaarta haddii la arko meeshii ka fiican in loo guuro ayaa ka fiican ma la faayaa haye nabad soo lama roono haye odayaal haye maxaa la haayaa halka bahalka ma hayaallo kan waxa waaye waa kalluun doona lagu saara waa lagu bara haa tababaraad gelaysa waa lagu bara haye halkan waxaan u soo dhowaanay dhulxeebeed iyadoo aad u jeedaan dadkii reer miyiga oo haysta kalluun ay soo dabteen kaasoo ugu yeerayaan libaax badeedkii markaan u sheegay in business ama ganacsi laga samayn karo kalluunkan aad soo dabataan waa ila yaabeen markaasaan waxaan u sheegay bal anigay eega waayo muddo haatan laga joogo 15 sano reer miyi ayaan ahaan jiray haddana waxaan u wareegay magaalada muqdisho anigoo ka samaynaya ganacsi aad u fara badan oo ku saabsan kalluun dabista iyo sida loo iibiyo maya doona lagu saara waa lagu bara xagee laga hela hadda aan ka barana tuuladan la yiraahdo dadkan si fiican ayaan isu fahanay anigoo ah qof dhul saxaara ah ka yimid haddana dhibaatooyinkeenu waa isku mid si xataa kalluun loo dabto ma aqoonin markaan muqdisho tegay waxaan u tegay hay-ad kalluumaysi kaasoo ay ugu bareen sida loo kalluumaysto markaa ka bacdi aad ayaan uga helay waxaana bilaabay shaqada kalluumaysiga waqti badan ka bacdi sanadkii hore waxaa la ii doortay maamulaha kalluumaysiga ee shirkaddan aan ka shaqeeyo maamul guud faraha aan ku hayo badda Soomaaliya waa badaha adduunka ugu kalluun badan uguna nadiifsan dhowr sano dawladdu waxay isku daysay inay dadka reer miyiga ah tababaro siiso dooman ay u iibiso si ay u bartaan sida loo kalluumaysto taasoo ay noqotay in dad badan oo ka soo guuray dhulka reer miyiga ah ay ka qayb qaataan tababaro ay sameeyeen dawladda Soomaaliya reer miyinimada waa dhibaatooyinka ugu weyn ee dalka Soomaaliya haysta halganka ay dawladdu wado weli uma hirgelin sidii la doonayay boqolkiiba 70 dadkii reer miyiga ahaa ee xeebaha la geeyay si ay uga shaqeysaan 1975tii markii roobkii ka bilowday dhulkii ay deganaayeen ee reer miyinimada ahaa gadaal ayay ugu laabteen جاليال شركة عادي هاي هالكاس أيو نوع أجي كلهم بس الرنبة كواب الليلة مرها كيفها هي حولها قرن دموشها kalluumaysatada waxay ku heesayaan heesihii lagu yaqaanay caanka ah iyagoo aad uga hadlaya shirkadda kalluumaysiga ee Kulmis oo ku heesaya wax soo saarkeena ayaanu badinaynaa kalluunka ayaanu badinaynaa iyo wadanka waxtarkiisa ayaanu badinaynaa
haddana waxaan sidaas ayaan waxaan rajaynayaa inaad aad ku adkaysano talabaad wax soo saarka ah kulankeenii caadiga ahaa ee khamiis walba maanta waxaan kaga hadlaynaa sidaan u xoojin lahayn wax soo saarka una midoobi lahayn si aan shirkaddan wax soo saarkeeda u kordhino isku filnaanshan aan u gaarno sidaan la socotaan qof walba oo shirkaddan u shaqeeya wuxuu ka yimid meelo kala duwan oo waddankeena ka tirsan iyagoo u yimid inay bartaan sida loo kalluumaysto si ay wax u qabtaan qoyskooda iyo waddankooda sidaad la socotaan waxaannu ka hadalnaa waxyaabo aad u fara badan oo isugu jira imise kalluun ayaa la soo dabay faa'iidada waa imisa sidaan u kala qaybsanaa nimanka aan keeneen adinka maadaama anaga shay halis aan ku dhex jirno aan ku dhex shaqeynayno waxa dhaci karto in sidaad u jeedaan waxaa bilowday su'aalihii ay kalluumaysatada weydiinayeen guddoomiyaha iyo maamulayaasha shirkadda iyagoo ka hadlaya dhibaatooyinka ay sheeganayaan marka anaga arrimahayna waxaa la rabaa inaad si fiican aad u baartaan magarad yacni dhinaca oo sukurasyoonaan ka hadlaa markii anaga dhibaata ina soo food saar taas kale aan ka hadlaa Soomaaliya khaasatan iskaashatada kalluunka xamardan kulmas ha guulaysan ha waarto ha joogto ibraahim ma u hilowday noloshaadii reer miyinnimada mararka qaarkood ayaan soo xasuustaa laakiin noloshayda ayaa aad u wanaagsan ee dhib ima hayo waxyaabo badan ayaa noloshayda iyo tan qoyskayga iska beddelay laakiin iyadoo sidaa ay tahay haddana qof walba meeshuu ku imaaday waa u hilowdaa waana jecel yahay maalin uun ilaahay hadduu yidhahdo inuu ku laabto dadka kula shaqeeya ma hiloobeen iyagana ilama aha aniga ayay ila mid yihiin anigoo jaamac abees la yiraaho abees munye oo la yiraaho oo iska ma u jeedaan wiilkan yar maalintii oo dhan hor iyo gadaal ayuu u socdaa asagoo gacanta ku haya qalabka tarashka waxaa dhacdaa in mararka qaarkood dadku ay yidhaahdaan wiilkan aad ayuu u yaryahay shaqadaasoo kuma cusla anigu laakiin waxaan u malaynayaa wiilkan qof nasiib badan waayo 45 sano ka hor markaan bilaabay isla shaqadan wiilkan yar samaynayo ma jirin qalabkan aan hadda adeegsano shaqadan aad ayay u adkayd waayo qorax iyo dabeyl ayaannu ku shaqayn jirnay ma jirin meel sidan oo kale ah markuu roobka da'ana alaabta aan samaynay oo dhan way naga hallaabi jireen waxaan samaynaa dharka aliindiga ah oo waddankeena Soomaaliya aad looga isticmaalo kacaanka ka hor shaqadeena aad ayay u cusleed isla meelna kama shaqaynin waxay dantu nagu qasbi jirtay markaan aliindiga samayno inaan beec ama qof naga gata u raadino suuqyada laakiin hadda dawladda ayaa naga iibsata wax walba aan soo saarno xisbiga hanti wadaagga ayaa go'aankaasi gaaray waana isla shaqaynaa faa'iidana waa kala qaybsanaa dhismahan oo ah xarunta xisbiga ee xaafadda Boondere waxay ka mid tahay 16 xaafadood ay ka tirsan tahay magaaladan Muqdisho maanta waxaan shirkan uga hadlaynaa qabanqaabada dabaaldega 1 Maajo ee ah maalinta shaqaale weynaha adduunka waxaan kaga hadlaynaa shaqooyinka ay qaban lahaayeen xaafadan Boondere sida aan u noqon lahayn xaafadda ugu horeysa ee ka qayb gasha dabaaldega 1 Maajo marka ugu horeysa in aan samayno samaysa riwaayad kooxda markaan samayno masana in la sameeyo
guddigaas aanu sheegnay la sameeyo si dhaqsada loo sameeyo hawshoodana ay bilaabaan gudoomiye arrintaas aan wax ku kordhin lahaa maadaama sanad walba magaalada muqdisho waxaa ka dhaca dabaaldeg aad iyo aad u weyn oo lagu xusayo maalinta shaqaale weynaha adduunka ee 1 Maajo waxaa ka soo qayb gala 16 xaafadood ay ka tirsan tahay magaalada muqdisho xaafadan Boondheer oo ah xaafadaha ku yaala bartamaha magaalada muqdisho ka qaybgalka bisha 1 Maajo waxay tahay mid aad dadku ay u faraxsan yihiin iyo ka qaybgalaya mahrijaano ku soo bandhigayaan ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed marka isku duwadridka loogu talagalay bishan 1 Maajo waxay bilaabataa waqti aad u dheer iyadoo ay qaadato hal maalin kaliya si qof walba uga qayb galo mahrijaankan qodobadaas oo ka kooban sidaan hore u sheegay 12 qodob marka ay shirarkan dhacayaan waxyaalaha cajiibka ah ee lagu arko waxaa ka mid ah in ay ka qayb galaan haween oo ka dhibanaya fikradahooda si ay u sheegaan waxyaalaha loo baahan yahay kowda Maajo magaalada muqdisho waxaad ku arkaysaa sawirro aad u badan kuwaasoo ka sheekaynaya raggii u soo halgamay hanti wadaaga oo isugu jira Lenin iyo Marx oo lagu soo bandhigo magaalada tan muqdisho ciyaarahan waa kuwa hidaha iyo dhaqanka Soomaaliya oo soo jiray waqti aad u dheer welina aan lumin taasoo uu xisbiga hanti wadaaga kacanka Soomaaliyeed uu aad ugu dhiirigeliyay waxay muujinayaan farxadda ummadda Soomaaliyeed iyagoo ilowsinaya waqtigii dheeraa ee gumaysiga ay ku jireen ciyaarahan waxa aad looga yaqaanaa gobolada Banaadir iyo Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka nimankan dabka ku ciyaaraya waxa aad ugu faraxsan oo daawanaya caruur aad u far badan oo ka timaaday xaafadda Boondheer ee magaalada Muqdisho سنة سدح دول سنة سدح محل وحدي دم بيقول وحدي محوها محل دعوة حفيز دعوة إذا واحد كاويل شيء أو كيس قبي waxaan u imid xafiiskan ay leedahay islaantan iyadoo wiilkaygii la xiray goorma la xiray wiilka sababta loo xiray maxay tahay qamri ayuu cabay dad wala dagaalay markaas ayaa booliisku soo qabteen oo xabsiga weyn u taxaabeen oo maxaa doonaysaa hadda in lagu sameeyo
wallaahi ma aqaan in liisoo dayaa doonaya waxaan isku dayaynaa inaan la hadalno ragga madaxda ka ah xafiiskan xafiiskan waxaa magaciisa la yidhahaa xafiiskan waa xafiiska nabadgelyada ee xaafadda boondheere shaqooyinkeenna waxay u badan yihiin inaannu dhammayno arrimaha yaryarka ah oo aan u baahnayn inay maxkamadaha gaaraan haddaannu arrimahan wax ka qaban weyno annagoo ah 7 xubnood oo anigu aan madax u ahay waxaannu gaarnaa go'aan degdeg ah maalin walba 4 galabno ayaan kulannaa ilaa iyo waqti dambena waan ku gaarnaa shaqadan arrimaha aanu qabano aad ayay u kala duwan yihiin laakiin kuwooda ugu badan waxay quseeyaan qoysaska Soomaaliyeed iyadoo mararka qaarkood arkaysid nin iyo naag isqabsaday iyo dad dagaalo soo dhaxmaray si aan arrintan u xalino waxaanu dadku kula talinaa inay heshiiyaan isna afiyaan si arrimahan mar kale aysan u dhicin diyaasha kale to xaafadaha inta u tagtay hay islaantan waxaa loo sheegay si loo soo daayo inankeeda inay ballanqaado inuusan mar dambe qamrigu caday uusan ku laabanin taa waxay u eg tahay mid aad u dhib badan waayo waxay tiri mar walba waxaa la ii sheegaa in la xiro oo meel uu ku jiro si aan wax u sameeyana ma garanayo mar walbana wuxuu leeyahay hooyo mar dambe lagama yaabo inaan arrimahaas aan ku noqdo dadkan waxay ku heesayaan Soomaaliya gadaal u laaban mayso dawladdu waxay jeceshahay inay isu keento dadka fanaaniinta ah iyo dhalinyarada si ay gacan weyn uga gaarsiiyaan xisbiga hantiwadaaga kacanka Soomaaliya dabaldegan wuxuu ku dhamaadaa tribuunka iyadoo fadhiyo madaxweynaha Soomaaliya Siyaad Barre isagoo siinaya bilad kala duwan kuna dhajinaya calaamada kala duwan ee shaqaalaha Soomaaliya waxa aad u xumeeyay dadkii ay xulafada ahaayeen Mareykanka waxay yimaadeen markii xornimada ay Soomaaliya qaadatay waxayna ka tageen markii kacanku u dhashay kii Ruushkana waaba ka sii yaraa dawladda maanta waxay isugu yeertaa hanti wadaag iyo wadanimo oo ah waxa kaliya ay wadankan Soomaaliya uu kaga bixi karo dhibaatooyinka soo foodle iyo kuwa hadda ay ku dhex jiraan muqdisho waxa ka buuxata beelooyin ay ku qoran yihiin propaganda sheegaya waxyaalaha xisbiga iyo kacaanka uu qabtay iyo dhibaatooyinka uu gumaysiga wadanka u keenay waxyaalaha caanka ah ee muqdisho lagu arko waxa kamid ah geesiga Soomaalida Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo la dagaalamay Ingiriiska Talyaaniga iyo maxaarada ka soo dhacay 20 sano ugu horeeyay qarnigan
waxaa kaloo jira talada dhagax tuur kaasoo muujinaysa in ninka Soomaaliga ah uu kula dagaalami karo cadow kastoo adduunka ah isagoo dhagax kaliya gacantiisa ku haysta. waxaa kaloo aad Muqdisho ku arkaysaan taalooyinka gumaysiga Talyaaniga uu ka dhisay caasimadan. taladan oo loo dhisay markuu socdaal ku yimid magaaladan amiirkii boqortooyada Savoia Umberto ee waddanka Talyaaniga. waxaad arkaysaa ilaa iyo hadda taladan loo dhisay Umberto di Savoia inaysan waxba iska bedelin dhismaheeda. waxaad kaloo arkaysaa guriga loo yaqaano Casa di Fascio oo Talyaaniga waqti hore ka dhisay Muqdisho. iyo waxaad arkaysaa kaniisada weyn ee Katoliga ah ama Katoolikada ay ka dhisan bartamaha magaalada Muqdisho. haddii aanay qaban qaabinayn qori ma tuureene haddii aanay qaban qaabinayn qori ma tuureene waxaad u jeedaa gabya Soomaali ah oo la yiraahdo Ibrahim Mirno isagoo ku gabyaya gabyo ka soo horjeeda gumaysiga fara badan ee Soomaaliya soo maray qaasatan gumaysigii Xabashiga. haddii aanay qaban qaabinayn qori iyo dagaal qowda ma hayeen ardi sababa kuma soo qubeen ku baqoodun وانا قانعي قلبي كان كجاري ميشانيو قبض كديريدي هدان قماتو ترشو أفرتين تنقف كدي وين مكاهي قاسي يبيت كيبا وغوري تراي ميلي غبتي يا فركانا قابلي ما تكتي ودنك تليانيغا ها كون سقال بقول صدق انتو ايان تغي halkee ka tagtay Roma laakiin Napoli dekreed ayaan ka degay waa markii ugu horeysay noloshayda aan markab raacay askarta iyo shaqaalaha markabka waxay nagu yiraahdeen Italy ayaa tagaynaa Mussolini ayaan soo arkaynaa safarka aad ayuu dheeraa jirabadeed ayaa igu dhacday Napoli ayaan ka soo degnay waxaana u gudubnay magaalada Roma oo aan tagnay xira askarta lagu tababaro anigoo bilaabnay tababarkii dheeraa ee askarnimada aad ayuu u dhibadnaa waxyaalaha aan xasuusto waxa kamid ah in Roma ay ka kuleed Muqdisho dad badan oo dhalinyaro ah oo Muqdisho ka tagay ayaana israacnay waxay noogu yeeri jireen magaca Dubad dharkeena uu ka duwanaa kuwa askarta Talyaaniga koofiyada baalka daawuska ayaanu gashan jirnay waxa kale xasuusta Mussolini oo mar walba noo qodbeen jiray inagoo saf ku gali jirnay wada la yiraahdo Via dell'Impero dadka wadada istaagan ee Talyaaniga ahaa mar walba markayna arkaan askartan ka timid Afrika ee u dagaalamaysa dawladda Talyaaniga aad ay ugu faraxsanaayeen waxaana arkaysay iyagoo mar walba noo saxabtumaya markaanu soo marno wadooyinka ku yaala magaalada Roma waxa aad wax uga xasuusta waqtiga Talyaaniga ninkan odayga ah oo la yiraahdo Qaasin Hilowle Qaasin wuxuu deganaa Muqdisho waqtigaas waxaana loo yaqaanay nanees aad iyo aad caan u ah oo la yiraahdo Iskifo Qaasin Hilowle waa 70 jir wuxuuna dhalay fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed Faadimo Qaasin Hilowle Qaasin Hilowle wuxuu aad u jeclaa heesaha Talyaaniga laakiin waxa dhici jirtay mararka qaarkood inuu u bedeli jiray heesaha Talyaaniga luqadda Soomaalida waxaana dhacday inuu heesahaas ka qaadi jiray tiyaatarka weyn ee Muqdisho Qaasin waxa aad loogu yaqaanay inuu ku heeso heesaha qabow mararka qaarkoodna waxa dhici jirtay inuu heesahani ka qaado tiyaatarka Muqdisho iskataka iman haddaan heebtaadi soo helay hay oran iskataka iman haddaan heebtaadi soo helay hay oran iskataka iman abaar iyo aaran أنكر صوي أرك أبيغان كويان
waa geesiyadii xornimada Soomaaliya wuxuu ka mid ahaa dadkii wax ka dhisay dhaqdhaqaaqyadii ugu horeeyay ee ka soo horjeeday gumaysiga madaxweynaha Soomaaliya Siyaad Barre wuxuu gudoonsiyay bilad caalami ah goorma magaca Skiffo lagu bixiyay mar walba waxaan ku heesi jiray heeso Talyaani ah waxa aad u jeclaa fanaanka Carlo Ponti hees uu qaadi jiray oo la yiraahdo Skipper marka dhalinyarada waxay maqleen Carlo iyo heesi Skipper waxay u maleeyeen Carlo Skiffo marka waxa dhacay waxa isku ekaaday magacii heesta oo ahayd Skipper iyo dhalinyaradii oo u maleeyay magaca inuu Skipper yahay marka mar walba jidka aan marayo qof walba oo dhalinyarada kamid ah isna qana isla heesi jirnay waxay ugu yeeri jireen haye Skipper iska waran maanta gurigaaga waxaan ku arkay diskiyo heeso Talyaani ah aad ayaan u jeclaa heesaha Talyaaniga guriga markaan joogana waan heesi jiray codkayga aad ayuu dheeraa hooyadayna ma jecleen markaan codka dheer aan ku heeso waxaan isku day jiray inaan u heeso heestaagayaasha Talyaaniga oo kale heesaas wax ma ka xasuusataa ها سفيعا mana maqashin kartaa Chitarra d'amor quando sorge la luna nel ciel tutta dorme qua giù accompagnami tu con la tua canzone Chitarra d'amor canta ancora la canzone d'amor la canzone d'amor che ripeta il mio cuore la divina illusione lo so è solamente un'illusione d'amor che svenirà come ruggida nel sol ma basta ciò per far sorridere questa cuore maxaad ka xasuusataa waqtigii Talyaaniga uu joogay Muqdisho waxa igu horeeyay aan xasuusto waa iyagoo furay dugsiyo hoose iyo iyagoo bilaabay garoomo sportiga lagu ciyaaro Soomaalida waqtigaas ma jecleen inay luqadda Talyaaniga bartaan hooyaday lugta ayay marka qaarkood iga xiri jirtay iimana ogolaan jirin inaan luqadda barto iyadoo u maleysay wax aad u xun dadkana ma jecleen ilmahooda inay geeyaan meelaha wax lagu barto markii dambe dadka waxay ogaadeen in haddii aad baratid luqad ajnabi ah inay maalin uun ku anfacayso sida daraadeed dad badan ayaa caruurtoodii keenay iskoolada Talyaaniga iyadoo baray sportiga iyo luqadaha oo Talyaaniga ah oo markaas ay dhigayeen macallimiin ka imaaday wadanka Talyaaniga weligaa ma tagtay wadanka Talyaaniga maya sabab nasiibkayga ma noqon inaan tago waan jeclaa inaan tago Itaaliya si aan u arko magaalooyinka Venezia Roma Milano Torino see ku baratay luqadda Talyaaniga weligay iskool uma tegin si aan u barto luqadan waxaan ka bartay garaash anoo aad u yar waxaan u shaqayn jiray nin Talyaani oo la yiraahdo Francesco Banano gurigiisa ayaan tagi jiray ninka cuntada u kariya ayaan la hadli jiray ilmihiis ayaan la ciyaari jiray si dhibir ayaan ku bartay hatta waxa gaaray heer inaan aqriyo jaraa'idka af Talyaaniga buugaagta waxa kaloo la hadli jiray ardayda Soomaalida ee luqadda baranaysay anoo weydiin jiray waxay maanta soo barteen markaan weydiiyo waxay ii sheegi jireen in maanta loo soo qoray ABC-ga Talyaaniga ah markaas ayaan waxaan aqrin jiray waxyaalaha ay soo qorteen iyo anagoo wato waraaq yar ayaan ku qoran jiray waxyaalaha ay ka soo bartaan iskuulka maanta markii dambe waxaan gaaray heer ah in heesaha Talyaaniga aniga gacantayda aan ku qorto aan heeso ama u bedelo iyadoo laxanka isku mid ah luqadda Soomaaliga marka aad ay u dhibadnay sidaan u barto luqadda Talyaaniga laakiin waxaan ogaa luqad walba in la baran karo adoo xataa iskool u tagin haddii aad isku xujisid inaad barin kartid luqad kasta marka dhibkaygaba ha ahaatee laakiin waan bartay luqaddii Talyaaniga ahayd
heesihiinii salaan wanaagsan waxaan idinka salaamayaa raadiyo muqdisho ku soo dhawaada barnaamijkeena nuska saaca ah ee luqadda talyaaniga oo ugu talagalnay dadka talyaaniga ee degan magaalada muqdisho iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku hadla luqadan. waxaan idin soo gudbinaynaa heesihii caalamiga ah oo isugu dhex jira heesaha Michele Zerillo, Napolitano, Michael Jackson, Abba iyo ugu dambaystii Supertramp. ma waqti badan ayaad ka shaqaysaa raadiyo muqdisho? waqti badan ayaan ka shaqeeyaa. waxaan shaqada bilaabay Radio Libre Italiana iyo anoo ka shaqeeyay discotheque Modena ku yaala. ka bacdi waxaan ku soo laabtay Soomaaliya anoo shaqo ka bilaabay Radio Muqdisho qaybtiisa Talyaaniga. meeqa sac ayaa soo daysaan barnaamijkan? nus sac kale ayaan soo daynaa. yaa idin dhagaysta? way kala duwan yihiin dadka Soomaaliyeed ee luqadda ku hadla iyo Talyaaniga wadanka degan iyo dad ajnabi oo luqadan ku hadla. iyagoo dhagaysta heesaha iyo wararka iyo waxyaalihii ugu dambeeyay ee ka dhaca wadanka Talyaaniga iyo wadankan Soomaaliya. ma jeceshahay shaqadan Cali? aad iyo aad iyadoo aan anigu qoro barnaamijkan waxa kaloo aad aan u jeclahay muusikada ka baxa barnaamijyadan anigoo doonaya inaan meel sare aan ka gaaro shaqooyinka noocan ah ee radioga iyo inaan noqdo soo saaro barnaamijyo kala duwan ee ka baxa radioga Muqdisho ee ku hadla luqadda Talyaaniga. tuulo u dhow magaalada Muqdisho waxa ka furan dugsi wax lagu barto muddo 7 sano. dawladda Soomaaliya waxay bilowday ololaha waxbarashada 1975 iskuulada iyo kuleejooyinka oo dhan ee wadanka Soomaaliya waa la xiray. 25,000 arday Soomaali ah ayaa waxa loo kala diray meelo walba oo Soomaali ka mid ah si ay u faafiyaan waxbarashada luqadda Soomaalida. xataa waxaad arkaysay dumar ilmihii iyagoo wata wax baranaya. sidaan la socono waxbarashada dumarka aad iyo aad ay u yareed wadanka Soomaaliya qaasatan magaalada Muqdisho. waqtiga hadda laga joogo 10 sano 1970kii 6 haween kaliya ayaa ka shaqeynaya xafiisyada dawladda ee magaalada Muqdisho. maamulaha dugsiga Beesh Jambaluul waxbarashada markii hore dalka ma taqaana magacaygu waa Maxamed Sheekh Yarow waxaan ahay maamulaha dugsigan. kacaanka ka hor dadka wax akhriya ama qora wadankan Soomaaliya aad ayay u yareed taasoo runtii markuu kacaanka dhashay waxyaalo badan isbedelay iyadoo aan ku adkaynay in dadka ay wax bartaan iyadoo ay dib ahayd waayo dhulkan waa dhul beeraley ah oo aan suuragal u ahayn inay dadku wax ku bartaan iyadoo dhulku aad u kala fog yahay. marka waxa dhacda mararka qaarkood in dadka ay meelo badan oo aad u dheer ay ka yimaadaan iyadoo ay ku qaadato waqti aad u dheer dibna ay ku tahay waayo dadku waxay u badnaayeen dad reer miyi ah iyo dad xoolo dhaqato ah sida wax loo bari lahaana aad iyo aad ay u adkeed. marka ololaha ayaa noo saamaxay inaan wax barno dadkan. dhibaatooyinka ugu weyn Soomaaliya haysta iyadoo la og yahay inay hal madaxweyne hal calan iyo hal jamhuuriyad ay leeyihiin ay yihiin in ku dhow 2 milyan ay weli ku nool yihiin nolosha miyiga
iyagoo aan haysan wax daryeel caafimaad iyo bulsho. xuduudida Soomaaliya waxaa ka socda dagaalo dadweynaha ay iska iloobeen. dawladda waxay xoogga saartay meelaha magaalooyinka ah ee dadka degan yahay, iyadoo keentay xarumo caafimaadka ee haweenka iyo carruurta. xataa caasimadda aad ayay u adagtahay in la helo meel dadka lagu daaweeyo. sanadka ugu dambeeya ee ardayda caafimaadka waxay ka shaqo galaan xaafadaha ugu faqiirsan magaalada Muqdisho, iyagoo kula talinaya dadka sida xanaanada carruurta iyo ka hortagga cudurrada iyo waxyaalaha kale ee fara badan. Circonferenza del cranio 44. Circonferenza del cranio 44. Solo altezza. Bes انت dawladda hantiwadaagga ee Soomaaliya waxay xoog saartay in dadka aan wax lacag ah haysan lagu daaweeyo si bilaash ah ama free ah, kaasoo keentay in dad badan oo ka yimaaday naaxiyaha magaalada Muqdisho ay yimaadaan si ay u helaan daawooyinkan lacag la'aanta ah si ay u daaweeyaan carruurtooda. George. sida loo dejin lahaa reer guraaga magaalada Muqdisho waa shaqo aad u dhib badan. dadka halkan degan dhibaatooyinka ugu weyn ay sheegtaan waxaa ka mid ah biyo la'aan, dhibaatooyin xagga bulshada oo aad u tiro badan. xataa marka cudur ku yimaado intooda badan ma aadan isbitaalka Muqdisho, waxay u tagaan dadka ku shaqaysta daawooyinka dhaqamaha ama traditionalka. nin ka shaqaysa daawada dhaqameedka oo la yiraahdo Jaamac, ninkaas oo dadka ka tuma cudurka mingiska, ayaa waxa uu yimid Professor Gherardishi oo ah professorka psychiatrika ama cudurka maskaxda ee jaamacadda Pisa ee dalka Talyaaniga. Jaamac, meeqa cudur ayaa daaweysay? cudurka jinka ee dadka madaxa ka gala. jini dadka jirkiisa ku jira? haa. maxaad ku samaysaa? waan daaweynaa. qofka ma raystaa? haa. imisa? wax badan. ma dumar baa u badan dadka daaweysaan? dumar iyo ragba. qofka maanta daaweynayna waa nin. waa gartay. ma qaali baa daaweyntaan? maya, ma badna, waa 1,000 shilin qofkiiba. waqti ma qaataa daaweyntaan? hal jini waxaa lagu saaraa 3 maalmood. hal jini 3 maalmood? haa. 1,000 shilin oo keliya? haa, iyo jini 6 maalmood lagu saaro iyo mid 9 maalmood lagu saaro. waa gartay. daaweyn lagu bilaabay wiil yar oo maskaxda laga hayo. wuxuu ka yimid qoys reer miyi ah, isagoo soo gaaray magaalada Muqdisho. markii reerkiisa ay kala qoosteen daawooyinkii caadiga ahaa ayay waxay keeneen Muqdisho si Jaamac uu jiniga inanka uga saaro ama uga tumo. waxay aaminsan yihiin wiilkan inuu jini aad weyn ku jiro.
dumarku waxay ku heysayeen inuu jinniga wiilka ka baxo iyaga u ballan qaadaya hadiyado kala duwan sida lo geel ari iyo dahab marka jinniga laga saaro waxa dhacda inuu jaamac u yimaado inanka kalana hadlo dhegta isagoo leh jinniyow maxaad u baahan tahay ka bax wiilkan waxa dhacda mararka qaarkood inuu jinniga markiiba ka baxo laakiin aad bay u adag tahay jaamac wuxuu noo sheegay inuu asaga daaweyn karo jinniyada laakiin in jinniga markuu ka baxayo uu ilaah uun ka saari karo wuxuu isku dayaa mararka qaarkood hadduu jinniga ka saari waayo inuu u yeero dad kale oo asaga khibradda aad uga sareeya si ay jinka u saaraan حقيقتي مؤمن هذا حقيقة الرعد شفر الله قالك رعد وحيسي حرديدان حسوسي عدودينا قدوغن حمر عدي عيتيدان وحيسي حرديدان حسوسي عدودينا